habeen wanaagsan halkani waa raadiyaha wadaag qodobada ugu door karan caawana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan la keeni doono ciidamada loo qaaday tababarka xilli maanta banaanbaxyo laga dhigay qayb ka tirsan magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir taliyaasha ciidanka oo kulan ka yeeshay ammaanka magaalada Muqdisho Kenya ayaa fasaxday dulimaadyadii imaan jiray Soomaaliya xilli la hadalhayo in heshiis laga gaaray arrimahaasi golaha wasiirada Puntland ayaa maanta meelmariyay xerar cusub ciidamada ka tirsan kuwa Puntland tababar loogu soo xiray qardho oo maanta la geeyay Boosaaso dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay markii labaad in la bilaabayo talaalka xanuunka COVID-19 ciidamada badda Mareykanka ayaa soo badbaadiyay badmaaxin kula qalimatay markab xeebaha Soomaaliya wararka Soomaalida ka baxsan warka wadaag caawad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah Sacuudiga iyo Imaaraadka oo wada hadallo la furayo Iiraan wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan taariikhdu waa 10ka bisha June 2020 warkaas oo faahfaahsan ku soo dhawaada magaalada Muqdisho maanta gelinka hore waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigeen waalidiin fara badan oo ka cabanayay askar la sheegay tababar in lagu qaaday Eritrea kadibna ka dagaalamay Ethiopia dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusman Abukar Dubbi ayaa mar kale beeniyay in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray dalka Ethiopia halkaana dagaal ay ka galeen wasiirka oo ka hadlayay shir jaraa'id uu ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in tababar ciidan halka loo geeyay xilligan la siinayo tababarkoodana uu gabagabay yahay waa sidaan ay sheegayo ciidamadii tababarkoodii waa gabagabay marka waxaan ka baqayaa maalinta yimaadaana in la yiraahdo maxay u yimaadeen tababarkii maxay tababarka soo dhameystaan maxay u yimaadeen indheheeno shanaynu arkayna aad baan ugu mahadnaqaynaa dawlad kasta oo xilligan aynu ku jirnayno amniga u baahanahay ciidan inoo tababartay runtii waa lafdhabar ciidamada aynu hadda ku joognaana waxa ay ku yimaadeen tababarkii gudaha iyo tababarkii dibadda iskaashaday waxaan kaloo rajaynayaa one day inaynu kaba maarmi doono inaynu dal shisheeyo ciidan u dirno Dubbi ayaa sheegay in ciidanka ay noqdeen dhalinyaro qaangaar ah oo go'aankooda ayaga leh kuwa oo tababar u aaday sida uu hadalka u dhigay Dubbi oo aan la qasbin Dubbi ayaa intaa ku sii daray in ciidamada ku maqan Eritrea ay la mid yihiin kuwa tababarka ugu jira dalal kale oo caalamka sida Turkiga balse aysan jirin ciidan tagay gobolka Tigray halkaana ka dagaalamay horta meesha caruurima joogto waa ciidan military ciidan military oo qofku iskii u doortay waana aaminsanahay in ciidamadu ma aqaan sababta hadda loo xago Eritrea waa dalaynu inagu dhisnay waa dalaynu inagu halgankiisa ka soo qayb qaadanay waa dalaynu inagu xoreynay waa dal aaminsan Soomaaliya la'aanteed inaan jirin sababta looga dhigayo cunfiga looga dhigayo ma qabo dhinaca kale wuxuu wasiirka sheegay in Kenya aysan duqeyn ka fulin karin Soomaaliya iyadoo marka hore lagu wargelin taliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo lamaha amniga saraakiishooda waxay ka wada hadleen ammaanka gobolka Banaadir maxamed Usman Nur Golden ayaa warkan eegaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir gaashaanla sare Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa maanta kulan la qaatay taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir kulanka ayaa looga hadlay amniga guud ee caasimadda iyo diyaar garowga maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1 Luulyo oo dhawaan ka bilaabanaya magaalada Muqdisho afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo kulanka faahfaahin guud ka bixiyay ayaa sheegay in sidoo kale looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee amniga ee magaalada Muqdisho wada shaqaynta hay'adaha amniga
iyo mas-uuliyiinta degmooyinka. sidoo kale waxa uu sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii loo joogteyn lahaa kulamada looga hadlay amniga si loo adkeeyo amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish oo ay isla socdeen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa waxay maanta ay kulan la qaateen dhammaan taliyaasha ciidamada kala gedisan ee booliska ee ka howlgala saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir kulankaasi oo loogu hadlay xaaladihii ugu dambeeyay amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyo waliba wada shaqeynta ay leeyihiin maamulada degmooyinka gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada qaybahooda kala gedisan sidii loo dardargelin lahaa. sidoo kale kulanka waxaa loogu hadlay u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo nagu soo foolay 26 Juun iyo 1 Luulyo iyadoona la qorsheeyay in la joogteeyo kulamada noocan oo kala ah si loo dardargeliyo amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho isla markaana maalmaha xurriyadda si aad ah loogu diyaar garoobo. Kenya oo fasaxda diyaaradihii tagi jiray iyo kuwii ka iman jiray Soomaaliya. warkan waxaa sii dheereynaya wariyahayaga Qadar Xuseen Axmed. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya loona soo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in la fasaxay diyaaradihii tagi jiray iyo kuwii ugu imaan jiray Soomaaliya. qoraalka wasaaradda ayaa waxaa maanta lagu sheegay in talaabadan ay horseedi doonto soo celinta xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashi ee ganacsiga isku socodka iyo midka diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya sharaf ayay u leedahay inaan ku wargelino in dowladda Kenya ay qaaday in dib loo soo celiyo xiriirkii labada dowladood waxayna go'aansatay in dib loo furo hawada Kenya dhammaan duulimaadyada ka imaanaya Soomaaliya iyo kuwa ka imaanaya Kenya ee tagay Soomaaliya. talaabadan ayaa niyad wanaag ah waxaa loo sameeyay danta guud iyo labadeena dal ayaa lagu yiri qoraalka Kenya. sidoo kale dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay shuruudo ku xiran in diyaaradaha ka baxaya Soomaaliya ee tagaan gudaha dalkaasi Kenya waxaana kamid ah shuruudahan in dhammaan rakaabka shaqaalaha imaanaya Kenya ay haystaan shahaadada COVID-19 oo baritaankeeda ay qaadatay 96 saacadood ka hor safarka. 2 in dhammaan socotada caruurta daadoodu ay ka yartahay 5 sano laga dhaafi doono shahaadada COVID-19. 3 dhammaan socotada waxaa laga rabaa inay buuxiyaan foomka xadiga safarka oo ay soo gudbiyaan ka hor safarkooda. asikastaba dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa taagnaa khilaaf u dhaxeeyay labadaasi dowladood waxaana khilaafkaasi uu sababay in dowladda dalka Kenya ay sheegto in gabi ahaanba ay joojiso duulimaadyadii ugu imaan jiray gudaha dalka Soomaaliya waliba kuwii kale ka bixi jiray dalkooda ay tagi jiray gudaha dalka Soomaaliya. golaha wasiirada Puntland oo ansixiyay xeer cusub iyo ciidamo cusub oo maanta garay magaalada Boosaaso. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa shir gudoomiye shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee toddobaadkiiba mar la qabto waxaana looga hadlay amniga ansixinta xeerka daroogada xaaladda COVID-19 ee deegaanada Puntland dhismaha bangiga Gaalkacyo iyo saameynta anyaxa ee gobolada Puntland. shirka golaha wasiirada uu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaa goluhu dood iyo falanqeyn kadib cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen xeerka gudniinka gabdhaha iyo xeerka daroogada oo ay golaha u gudbisay wasaaradda cadaaladda Puntland. shirka marka uu soo gabagaboobay kadib waxaa saxaafadda uga warbixiyay afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani. anta oo khamiis ah 10 bisha 6 2021 madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee dowladda Puntland oo toddobaadkan ku qabsoomay hoolka cusub ee shirarka ee xubnaha golaha wasiirada loogu talagalay ku yaala madaxtooyada. shirka oo ka qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaa looga hadlay qodobo ay kamid yihiin amniga guud ee Puntland oo aad u wanaagsan iyo horumarada dhinaca amniga ee socda, xaaladda ka dhalatay ama saameynta ka dhalatay ayaxa ee deegaanada Puntland, xaaladda xanuunka COVID-19 ee deegaanada Puntland iyo habsami socodka qaadashada talaalka oo si wanaagsan iyada u socota oo dabcan wasaaradda caafimaadku ay ka warbixisay. shirka waxa ay wasaaradda cadaaladdu ay u soo gudbisay xeerarka gudniinka gabdhaha iyo xeerka daroogada. dood iyo falanqeyn dheer kadibna xeerka gudniinka gabdhaha iyo xeerka daroogada ayay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada dowladda Puntland.
dhinaca kale ciidamo cusub oo boolis ah ayaa maanta la geeyey magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari kuwaas oo ka yimid magaalada Qardho oo tababar ugu soo dhamaaday taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaale sare Xuseen Cali ayaa ku soo dhaweeyay ciidamada cusub magaalada Boosaaso ciidamadan ayaa taliyaha amray in ay aqoontii ay soo barteen ugu adeegaan bulshada gobolka Bari isagoo uga mahad celiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo kaalin muuqata ka qaatay tayeenta ciidamada Puntland sidoo hadalka u dhigay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay mar kale in la bilaabayo talaalka xanuunka COVID-19 warkan waxaa sii dheereynaya waryahayaga Qadar Xuseen Axmed. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheecisay in dalka oo dhan laga bilaabay qaadashada qaybta labaad ee talaalka ka hortagga cudurka COVID-19 war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in la adkeeyo wacyigelinta ku aadan adkeynta nadaafadda gaar ahaan qaadashada afxirka iyo kala fogaanshaha dadka qoraalkan ayaa lagu xusayaa in dadka aan weli qaadan talaalkii qaybtii hore loo diyaariyay talaal cusub oo lagu magacaabo Sinopharm kaas oo WHO ay u aqoonsatay in loo isticmaali karo ka hortagga COVID-19 sida dadweynaha Soomaaliyeed ay wada ogsoon yihiin talaalka ka hortagga cudurka COVID-19 waa laba jeer sidaasi awgeed wasaaradda caafimaadka waxay dadkii hore u qaatay talaalkii koowaad ee cudurka COVID-19 ku wargelinaysa in dhammaan dalka oo dhan laga bilaabay bixinta talaalka dooska labaad sidaasi awgeedna waxa dadweynaha lagu boorinayaa inay qaataan oo ay tagaan xarumaha caafimaad ee loo asteeyay talaalka labaad ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay mudnaanta koowaad ee qaadashada talaalkan la siinayo shaqaalaha caafimaadka macallimiinta ciidamada shaqaalaha dawladda hoose ilaalada kontaroolada laga soo galo dalka dadka daadooda ay ka sareyso 50 sano iyo dadka qabo cudurrada sida macaanka dhiigkarka wadna xanuunka iyo kaliya xanuunka si kastaba wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa horay dalka u keentay talaalka COVID-19 waxaana qaatay kumanaan ruux oo ku nool magaalada Muqdisho iyo waliba qaar ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya. wasiirka koowaad ee dalkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo warbixin ka dhageystay guddiga xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa faray in habraaca hubinta la marsiiyo xubnaha cusub ay soo magacaabeen dowlad goboleedyada isagoo ku baaqay in xubnaha harsan dhaqso loo soo diiwaangeliyo loona soo gudbiyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo ah gudoomiyaha guddiga ayaa sheegay inta badan inay soo gudbiyeen maamulada xubnaha guddiga lagu bedelayo kuwii hore guddiga looga saaray hal maamul ayuu sheegay in xubnihii loo diray uusan weli soo gudbin kuwa cusubna lagu bedelayo dhanka kale ra'iisul wasaare Roble ayaa gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo looga hadlay xaaladda amniga dalka iyadoo laga dhageystay warbixino ku saabsan amniga dalka caabuqa COVID-19 gurmadka abaaraha iyo fatahadyada halka warkeedin kaga imaanayana waa wadaaga media network wararka Soomaalida ka baxsan warka wadaaga caawa ku dhageysanaysan waxa kamid ah Saudi Arabia Imaaraadka Carabta oo garowsaday in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nuclearka Iran ee horay uga soo horjeesteen waxaana u muuqata wada hadallo in ay yeelanayaan xukuumadda Tehran iyo labada wadan Saudi iyo Imaaraadka warka oo idinkaga imaanayo radio wadaag dhageysiyaal wanaag intaan ku maasantiin dhageysiga warkayaga warkan kan xigay intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.